noloshu waa nimco ka mid ah nimcooyinka uu Allah subxaanahu wa tacaala bixiyo mudanna in laga faa'iideysto. waxaana taas daliil inooga filan xadiiskii uu ibnu Cabbaas ka wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ahaa 5 ka faa'iideyso intaanay 5 kugu iman. shabaabnimadaada ka faa'iideyso inta aan gabo kugu iman. caafimaadkaaga ka faa'iideyso inta aadan bukoon. ghaninimadaada ka faa'iideyso inta aan faqri kugu iman. firaaqadaadana ka faa'iideyso inta aadan mashquulin. noloshaadana ka faa'iideyso inta aadan dhiman. ayada oo dulucdeenu tahay xadiiska qaybtiisa dambe oo inoo sheegaysa in noloshu aysan ahayn wax lagugu waarinayo, laakiin ay tahay wax waqtiyada ka mida laga qaadi doono, ayna mudan tahay in laga faa'iideysto. tusaale ahaan, suuragal ma tahay inaad u safarto magaalo aadan garanayn magaceeda, dhanka ay kaa jirto iyo weliba masaafada ay kuu jirto, adiga oo aan ruux kale isku hallaynayn? dabcan jawaabtu waa iska caddahay. suuragalna ma noqon karto in aad aado meel aad rabto adiga oo aan ka helin xog ku saabsan sida magaceeda oo kale. haddaba safar kooban oo saacado ama daqiiqado qaadanaya haddii uunan suuragal u ahayn qorshe la'aan, maxaad u malaynaysaa safarka noloshaada oo idin? in aad dhanka wanaagsan wax ka eegtaa micnaheedu ma ahan oo keliya in aad mar walba faraxsanaato. sidoo kale waa inaad garato waqtiyada adag in ay weli jiraan maalmo wacan oo ka dambeeya. dadka nolosha ku guuleysta waa dad kale yool ay higsadaan, isla markaana u dejiya qorshe oo ah jaranjaradii ay ku fuuli lahaayeen higsigooda. ku dadaal wixii qiimo kuu samaynaya, allana kaalmayso. ha caajisin, hana isdhiibi. samirka badi, qadarkana rumaysnow. hore u socod, xitaa socodka diinka aad yeelatide. ha niyad jabin marnaba. maalin unbaad arki doontaa adiga oo bulshada ka dhex iftiimaya. ogowna, muslimka qawiga ah waxa uu ka khayr badan yahay muslimka daciifka ah, sida laga wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam. mid kalena ogsoonow, haddii aad doonaysid in aad farxad ku noolaato, ha faalayn waqtiyadii xumaa ead soo martay. hana kasii warwarin waxa aad berri la kulmi doontid, ee keliya waxaad faalaysaa nimcada aad maanta haysato. ilaahayna uga mahad celi. markaas ayaad dhadhanka farxadda nolosha dareemi doontaa. isweydii, maxaad ka damacsan tahay noloshaada dhow iyo tan mustaqbalkaba? waa qasab. qofka bini aadamka ah mar walba waxbuu higsanayaa, isla markaana jecel yahay inuu gaaro, balse waxaa kala duwan sida ay u qaabilaan ka gungaaridda waxyaabaha ay higsanayaan. dadka badankoodna ma lahan qorshe ay u dejiyeen ka miro dhalinta yoolka noloshooda. waxa ay nolosha u qaabilaan sida ay iyadu usoo qaabisho. halkii ay nafta xukumi lahaayeenna iyaga ayay hoggaanka u haysaa. taana waxa ay sababtaa in inta badan ay qiimo beesho nolosha qofku. marka aan ka hadlayno yoolka nolosha, dadku waxa ay u qaybsamaan ilaa iyo 5 qaybood. bal isweydii oo qiyaas, midkeebaad adigan i daawanaya ka mid tahay? 1. qof aan lahayn wax yool ah, oo haddii aad weydiiso maxaad doonaysaa oo kuu qorshaysan kuugu jawaabaya ma garanayo, laakiin mar haddii aan noolahay igu filan. qodobka 2. qof garanaya waxa uu doonayo, waddadii iyo qorshihiina garanaya, hase yeeshee aan naftiisa ku kalsoonayn in uu guul gaari karana aan aaminsanaynba.
qodobka saddexaad qof garanaya waxa uu doonayo wadadii uu u mari lahaana garanaya naftiisana ku kalsoon laakiin waxaa raad ku yeesha qofkan hadalka dadka oo qof walba oo ra'yi u soo jeediya isaga oo hawshii ku guda jira dhegta ayuu u raariciyaa dadkuna waa mid ku oranaya sidan ayaa wanaagsanaan lahayd ama sidan ayaa sidan ka fiican kadibna wuxuu bedelaa qorshihii uu waday isaga oo aan ka guulgaarin dadka badankiisuna noocan ayay u badan yihiin qodobka afaraad qof waxa uu doonaya garanaya wadadii uu u mari lahaana ay u muuqato naftiisana ku kalsoon dadkuna aanay raad ku yeelan oo aanay qorshihiisa waxba ka bedeli karin hase yeeshee fakarka wanaagsan oo ka qaata laakiin qofkani guul walba oo gaaro isaga ayaa dib u burburiya kadibna waa uu fashilmaa qodobka shanaad qof garanaya waxa uu doonayo wadadii uu u mari lahaana u muuqato naftiisana ku kalsoon iyo awoodda ilaahay siiyey guul inuu gaari karo aaminsan dadkana warkooda wixii ka anfaca ka qaata yoolkiisana aan laga leexin karin guusha uu gaarana aysan marnaba caqabad ku noqon ee markuu hadafkii ama yoolkii uu doonayay gaaraba mid kale u qalab qaata ilaahayna tala saarta qofkan ayaa ah kan inta badan guusha gaara ku dayashadana mudan waxaan xasuustaa gabay uu tiriyey allaha u naxariistee gabayaagii Soomaaliyeed xaaji aadan afqalooc oo ahaa zaban tegay mid weli soo socdiya saaka waxa jooga saddexda waqti baa xaal adduun lagu sifeeyaa soo noqod ma jiro shalay wixii saadufoo dhacay waxa sahan dameetiya birina waa su'aal maqane waxay taladu ku suuban tahay subaxa aad joogta buu yiri abwaanku sida aan gabaygiisa ka dhadhansanayno ma uunan hambaynin hadalka waxa uu inoo fasiray qaabka iyo sida ugu habboon ee waqti loo adeegsado haddii aadan adigu istiraatiijiyad lahayn waxa aad ka qayb noqonaysaa istiraatiijiyad qof kala dejista inta aad nooshahayna wax walbaahi waa suurtagal haddaba maxaa u diida dadka badidood qorshe u dejinta hadafka noloshooda waxyaabaha ka hortaagan dadka badankood in ay qorshe u dejiyaan noloshooda waa ay fara badan yihiin hase yeeshee waxaan ka xusi doonaa ilaa iyo dhowr qodob qodobka koowaad cabsi ay ka qabaan guuldarro iyo fashil ku yimaada qorshaha ay degsadaan qodobka labaad liiditaan nafsadooda ay liidayaan ayagoo isu arka inaynan qorshe fulin karin qodobka saddexaad faham darro ka haysata muhiimadda ay leedahay qorshe u dejinta hadafka nolosha qodobka afaraad xishood iyo cabsi ay ka qabaan in ay bulshadu la yaabto qodobka ugu dambeeya is-dhiibid uu qofku isdhiibo isaga oo kadibna wahsada hadraawina waa tuulaha subax dhalatay caadkeeda ha ka bogan waxsaarkeeda adiguba samee maanta berritona sargooheedhe noloshaba inaad saafto saabayso qaabkeeda waxaan suuragelin maaha garashiyo sugnaha hayso falka sami ha kuu raaco mana jiro sadkaa baaqday ilbaxnimadu saas weeye sirta noloshu saas weeye buu yiri in sida aad tahay iyo itaalkaaga u noolaato nusqaanibaha ku jirtee ayaa ka wanaagsan kana khayr badan in aad ku noolaato iska yeelyeelka nolosha cid kale xabsiga ugu weyn ee ay dadku ku noolaadaan waa cabsida iyo ka walwalidda waxa dadka kale ka aaminsan yihiin waad gaari doontaa waxa aad ku haminayso oo khayr iyo wanaag u horseedaya naftaada iyo bulshadaba mar aad gaartidba ha dhowaato ama ha dheeraato alla tala saaro ilaahayna ku hoojin mayo waayo isaga ayaa ballantaa qaaday ee adigu keliya ha kaa go'naato
Cabdifataax qaariga dhalinyaradana watuu lahaa qof baa tahay meel ku toosan, dad baa kugu taama koonka, cid baa tale kaa sugaysa, hankaaga haddaad takoorto filkaa la tallaabsan maysid. Adduun ma tognooba geese, wax taama ah waa kitaabka. Intaa tubta nolosha hayso, tijaabo ayay rabtaaye, turaanturadeeda miiran tusaalo ka reebo waarabu. Halkuu tusbax kaaga daato, mar kale ha ku toogad seegin. Waayaha tegay iyo quruunta ka baro tagtada duruusta. Ogow guul darro walba oo ku soo food saarta inta aad geediga nolosha ku guda jirto waxba kaama naaqusin, ee waxaa kuu ziyaaday khibrad iyo waaya aragnimo dheeri ah.